kulan looga hadlayay horumarinta haweenka ayaa degmada Daynile ee gobolkan Banaadir waxa uu ku dhexmaray wasiirka haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka ee Soomaaliya iyo sidoo kale haweenka ku nool degmada Daynile ee gobolkan Banaadir. Faafahinta warkan waxay inoo hayaan Nur Saciid Tahliil. maamulka degmada Daynile iyo ururada bulshada rayidka ee ku nool degmadaasi ayaa xarunta degmada si weyn ugu soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul aadanaha ee xukuumadda Soomaaliya Saare Maxamed Cali Samatar oo ay weheliso gudoomiyihii hore ee degmada Warta Nabadda Deeqa Cabduqaadir Axmed. soo dhaweynta kadib wasiirka waxay kulan la qaadatay ururada bulshada iyadoo kala hadashay sidii loo horumarin lahaa xuquuqda haweenka Soomaaliyeed iyo la dagaalanka gudniinka fircooniga oo ay wasaaradda haweenka maalmihii la soo dhaafay ay waday olole arintaasi lagula dagaalamayo. gudoomiyihii hore ee degmada Warta Nabadda Deeqa Cabduqaadir Axmed ayaa kula dardaarantay wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka in ay u istaagto sidii ay ilgaar ugu heen lahayd xuquuqda dumarka Soomaaliyeed. aad iyo aad aan ugu faraxsanahay wasiiradeena inay timaado degmada Daynile tagi doonto 17 degmo gobolka Banaadir hadduu Ilaahay ka raali noqdo. waxaan leeyahay wasiir soo dhawow, shacabkan waa shacabkaagii, gabdhahan quruxda badan waa gabdhahaagii, adaa laga rabaa inaad shaqo u abuurtid oo soo dhaweysid oo gacanta ku qabatid sababtoo ah haweenka adaa wasiir u ah. haweenkana waxaa laga rabaa inay wasiiradooda seenbari garab istaagaan. gudoomiyaha degmada Daynile ee magaalada Muqdisho Axmed Nuur Cabdi Siyaad waxa uu ka hadlay baahiyaha kala duwan ee ka jira degmada. waxaa ku nool bulshada rabta inay dadkooda la qaybsadaan dawladnimada, jacaylna nabadda iyo horumarka. waxay u baahan yihiin waa baraha caafimaadka oo degmada aad ugu liita. rabnana inay wasiiradda inaga saacido sidii aan u heli lahayn MCA-yada degmada, gaar ahaan MCA degmada noogu shaqayn lahaa. waxaad arkaysaa inta badan waxaa dhibaatada ku dhacdaa waa haweenka iyo carruurta, ayaguna daryeel fiican ku aadan caafimaadkooda ma helaan. marka waxaan rabnaa wasiiraddina waxaan faraynaa kaliya degmadana inteeda kale ay ka fiican tahay, amnigeedu uu fiican yahay, boqolkiiba boqol yahay mid la isku halayn karo, indhahaadan maanta markhaati aad ka tahay. wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul aadanaha Saare Maxamed Cali Samatar ayaa ka warbixisay ujeedka booqashadeeda. marka maanta imaatinkeyga maxaa baystu ah, maxaa saldhig u ah? kow waxaan rabaa inaan ogaado marxaladiina, waxaan rabaa inaan ogaado marxaladda caafimaadkiina sidee tahay, waxbarashadiina sidee tahay, horumarkiina sidee tahay, nabadgelyadiina sidee tahay. wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka mas'uuliyadeeda waxay tahay gabdhaha Soomaaliyeed saddexda qodob ee ugu waaweyn oo ah mid koowaad inay gabdhaha Soomaaliyeed amnigooda uu sugan yahay, inay gabdhaha Soomaaliyeed horumar dhaqaale iyo maxaan ku iraahdaa waxqabadkoodu uu sare u kaco, inay gabdhihii Soomaaliyeed ay yihiin gabdha la siman markii la yiraahdo siyaasadii ama siyaasadda meesha u jihaysan tahay. aniga maanta waxaan jeclaan lahaa inaan soo arko xarumihiina, goobaha aad ka shaqaysaan. hay-ado badan ayaa wadankan caawinaad keena. waxaan rabaa inaan arko bal hay-adihii wadanka keenayeen ma soo gaareen Daanyile iyo meelo ka fogfog. wasiir Sahra ayaa sidoo kale bulshada ku nool degmada Daynile ku bogaadisay in ay meel ugu soo wada jeestaan ka hortagga gudniinka fircooniga oo dhibaatooyin kala duwan ku haya gabdhaha Soomaaliyeed. hooyooyin badan hadda waa ii muuqdaan. hooyoy gabadhaada sidee u gudaa? idinka ayaa maanta horseed ku ah, idinka ayaa gabdhihii ugu firfircoonaa ah ee degmadiina waa inaad ka soo saartaan gudniinka fircooniga waa ka baaba'ay. waxaa igu maqaal ah in isbitaalka degmadan ku yaal gabdho badan oo isku furan ah la keenay. maxaa u sabab ah? gudniinka fircooniga u sabab ah. dhinaca kale wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul aadanaha Saare Maxamed Cali Samatar ayaa booqasho gaaban ku tagtay isbitaalka weyn ee degmada Daynile, waxayna kulan la qaadatay maamulka iyo dhaqaatiirta ka howlgasha isbitaalka iyadoo ay mid u booqatay qolalka kala duwan ee loogu adeego bulshada arrimaha caafimaad u yimaada isbitaalka Daynile. wasiirka ayaa maamulka isbitaalka ku boorisay in ay sii xoojiyaan gargaarka caafimaad ay u hayaan bulshadooda, isla markaana baahiyaha uu qabo isbitaalka Daynile la xalin doono. Nur Saciid Tahliil, TV-ga qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.